Assalaamu calaykum qoyska Shiinasiibay. Maanta waxaan ii wadaa manhabo cusub oo lagu magacaabo Modern Login. Ka war haddii aad ahayd ugaarsado daciif ah oo qof walba hoos u eego. Ka war haddii aad hal maalin aad heshay ciyaar qarsoon oo ku oggolaanaysa inaad gasho dunida modernka. Halkaas ay ka buuxaan awoodo iyo xirfado oo wax kasta ay ugu muhiimsan ay tahay awooddaada. nin lagu magacaabo Tikion ayaa si laba filaan ah u helay qalab qarsoon oo furaya adduun kale, laakiin markii hore wuxuu muuqday ciyaar caadi ah oo suubiga darasa safar khatar badan oo ay ka buuxaan dagaalo iyo saaxiibo cusub iyo cadow aan naxariis lahayn. Tawo diyaar ma u tahay safarka dunida Modern Login? Aan gudagalno sheekadeenna. Sheekadeen waxay ku bilaabaysaa in lagu magacaabo Tikion oo hanka heerkiisu yahay rankeef, taasoo ay ka dhigan tahay inuu yahay qofka ugu tabarta yar dadka awoodaha leh. maalmaha ka mid ah wuxuu waddada ka soo helayaa kaabsil aad u weyn oo ciyaaraha casriga ah oo lagu magacaabo Ark 2020, isagoo ku dhibaataysan oo aad u xanaaqsan ayuu dabaqa afraad soo saaray bahalka qashinka u eg. Laakiin nasiib daro markii uu qolka geeyey waxaa ku soo dhaweeyay saaxiibkii oo lagu magacaabo Sun Jinho oo ah 30 jir muddo 7 sano ku guuldareysanayay imtixaamaadka jaamacadda ayaa isha mariyay mishiinkii wuxuuna si toos ah ugu yeedhay kan waa qashin kaliyaata. Tikion wuxuu isku dayay inuu difaaco mishiinkiisa isagoo leh xitaa si fiican umaad eegin, lacag baan u baahanahay waana tabaalaysanahay. Laakiin Jinho oo iska weyneynaya ayaa ku yidhi kelmado aad u xanuun badan: qashinka waa qashin, lama baahna in qashinka dhexdiisa loogu jiro si loo ogaado inuu qashin yahay iyo in kale. adiga xitaa ma tihid hantar rasmi ah. Kadib halkaas waxaa ka dhasha xanaaq waali ah. Tikion oo indhihiisu madoobeyn ayaa u soo hanjabay saaxiibkii Jinho oo markaan baqdin tii ugu weyn soo wajahday ayaa bilaabay inuu akhriyo sharciga dadka awoodaha leh oo lagu magacaabo Awaken Beings Law oo mamnuuca in dadka caadiga ah loo isticmaalo xoog. Jinho oo naxsan ayaa istifaacaya isagoo leh ma waxaan yidhi saas goorma, ma waxaan ahay qof sakhraansan sababtoo ah waxba kama xasuusto wixii oo dhan saaxiib. Tikion ayaa caradii ka dhamaatay isagoo niyad jabsan ayuu sariirta ku dhacay. Jinho oo neef ka soo baxday ayaa yidhi waa ka fikir fiican inaad isdejiso. haba yaraatee xaaladdu awalbay kugu adkayd haddii ururka hantanku ay maqlaan inaad qof shacab ah weerartay, shaqada waa laga eri lahaa. laakiin halkaas waxaa ka soo baxda sir ka xanuun badan. Tikion isagoo madaxa hoos u dhigay ayuu yidhi maanta markaan shaqadii tegey hogaamiyaha kooxda wuxuu igu yidhi waad ku mahadsan tahay wax kastoo aad qabatay. Tikion wuxuu noqday hantar sababtoo aabbihii u geeriyooday ayaa hantar ahaa, inkastoo uusan lahayn wax taalanti ah oo awooddiisu tahay rank F, haddana wuxuu had jeer ku faani jiray shaqadii adag. dadaalkaas shaqee 7 sano wuxuu ku guulaystay inuu ku bixiyo lacagta daawada ee hooyadii isagoo dib ku taageeray walaashiis ka yar. laakiin maanta wuxuu dareemay in wax kasta uu dhisay 7 sano la soo dhaafay ay qashin noqdeen oo shaqadii laga eriyay. Jinho markuu maqlay saaxiibkii dhibaatadii haysataa wuxuu dareemay inuu ka xun yahay hadalladiisa hore. Tikion oo dhoola cadaynaya ayaa yidhi waan ogahay inaad ka xun tahay waxaad tiri sax. Jinho ayaa isagoo faraha calaamad yar ku tusaya yidhi hagaag xoogaa yar. Tikion ayaa si saaxiibtinimo leh garabka u qabsaday isagoo leh haddaba cabitaan ii soo iibi walaal. taasi waa waxay walaalaha waaweyn ee hayoonka sameeyey wakhtiyadan oo kale. sax. Jinho oo ishayo ayaa yidhi naclad ha kugu dhacdo weligaa igumaad yeedhin walaal. oo haddana markay cabitaan tahay ayaad xasuusanaysaa soo maaha. ugu dambayntii labadii saaxiib waxay go'aansadeen inay caawa cabbaan oo ay iska ilaaliyaan dhibka dunida saaran, iyagoo leh caawan sakhraanno walaal aanu cabno sidii inaysan berito jirin. waxaynu ka tegeen qof walba iyadoo isagoo dhex yaalo mishiinkii qasoodiga ah ee Ark 2020. intaas kadib saaxiibayaal dib aan ugu noqono meeshii wax walba ka soo biloomeen. sheekadu waxay dib noogu celinaysaa 2015 January 1. maalintaas kadib bini'aadanku kumaysan soo dhoweyn sanadka cusub farxad iyo qosol. waxaynu arkaynaa wax ku soo habsaday dunida oo lagu magacaabo dekeydis albaabo ama boortele sixira, taasoo si toos ah dunida ugu xiray duni kale oo loo yaqaano markii, taasoo si toos ah dunida ugu xirtay duni kale oo la aqoon. markii albaabada furmeen waxaa ka soo daatay musiibo aysan indhaha bini'aadanku weligood arkin. waxaynu arkaynaa makhluuqaad kala duwan oo cabsi leh kuwaasaan weligood dunida lagu arkin ayaa bilaabay inay si isdaba joog ah ugu soo shubmaan albaabadaas. laakiin bini'aadanku ismay dhiibin. waxaa soo baxay dad awood gaar ah leh oo loo yaqaano Awakened Beings
waxa dhacay dagaal dhiig ku daatay oo u dhexeeya dadkaas awoodda helay iyo wuxuushtii duulaan ku soo qaaday kadib guulo iyo guuldarooyin badan oo la soo maray. Geesiyaasha adduunku waxay ugu dambayntii ku guulaystay inay soo afjaraan sharta iyo dagaalkii weynaa kadib markii ay dileen boqorkii wuxuushta oo xoog badnaa oo lagu magacaabay Great Demon King Asmodeus. maalintaas taariikhdu waxay ahayd 1 January 2020 waxaana lagu magac daray The Victory Day. wixii ka dambeeyay maalintaas monsterskii caadiga waxay joojiyeen inay magaalada u soo baxaan waxayna bilaabmay xilli cusub. xilliga Hunterska dadka awoodaha leh waxay hadda gudaha u galaan dungeon-yada amba hooga si ay u soo gurtaan monsterska iyagoo ka soo qaata hanti loo qaali ah oo ay iibiyaan suuqyada waaweyn. Hunterska badankoodu waa dad ka sareeya xadka caadiga ee bini'aadamka waxaa loola darajeeyaa hadba awoodaha inta ay la eg tahay, laakiin halkan xaqiiqdu naxdinta ku noqonaysa waa Tycoon. dadkaas awoodaha dhan leh anigu waxaan ka hayo qofka ugu hooseeya ranka F Hunter Tycoon isagoo dhiban garab ku sita saaxiibkii Jinhu ee maraayadaha lahaa isagoo dareensan in adduunka casriga ay dadka u baahnayn Hunter daciif ah oo booska ka lumiya. laakiin ugu dambayntii Tycoon wuxuu ku guulaystay inuu saaxiibkii guriga keeno isagoo dib ku soo saaray dabaqa sare. intaas kadib Tycoon wuxuu isku dayay hurdada ka kiciyo saaxiibkii Jinhu oo sakhraansan isagoo wejiga ka dhirbaaxaya oo leh Jinhu toosniyahow. laakiin Jinhu oo kaliya wuxuu ka jawaabayaa guuxii Hinraag. Tycoon oo ka cabay dhulka ka soo maray ayaa wuxuu yidhi waxaan ku yidhi cabitaanka iska yaree, laakiinse daqiiqadaas Jinhu ayaa si toos ugu mantagay garabka Tycoon. Tycoon oo xanaaqsan ku qayliyey ayaa u saaray garankiisa u saaray una dusha uga tuuray. Tycoon oo garan la'aan ah oo daalna ayaa fadhiyay geeska qolka ayuu yidhi aniga ayaa qofka dhibaataysan halkan adiga maahniyahow. laakiin intuu fadhiyey indhihiisu waxay qabteen kaabsarkii weynaa oo qolka u yiiray ee u yahay qalabka ciyaaraha VR-ka. wuxuu xastay inuu qalabkan iska ilooway isagoo yidhi waan ilooway shaygan wax laga yaabo inuu ku iibiyo qiimo aad u fudud kaasaan ku gato waxyaalaha fudud laakiin aad baan u caajisay hadda waxa iska roon inaan iska tuuro keliya. taas beddelkeeda wuxuu go'aansaday inuu eego wuxuu riixay badhankii weynaa ee ku qornaa Bush markii qalabkii uu cod sameeyey waana uu furmay waxaana ka dhex muuqday kursi fiican oo loo qabeeyey iyo koofiyad VR ah. laakiin waxa ugu muhiimsan ee Tycoon indhihiisa qabteen wuxuu ahaa warqad ama buug yar oo kursiga dhex yaalay. wuxuuna dhahay waa maxay kani? ma buugga isticmaalka user manualka ahba? wuxuu la soo baxay buuggii isagoo la yaaban sababta qof u soo tuuray qalabkan iyo buuggiisiis wata. markuu Tycoon buuggii furay wuxuu arkay macluumaad ka yaabiyey oo ku qoran buugga. waxa ku qoran simulatorkii u dambeeyey ee runta u dhow modelkiisuna uu yahay Act 2020. date productionkuna waa 1 January 2020. Tycoon ayaa indhaha taagay isagoo leh sanadkan 2020 soo ma ahayn sanadkii uu dagaalka soo afjarmay. halkan waxaa ka muuqata inuu qalabkan ahayn mid caadi ah oo xiriir leeyahay maalinta guusha ee Victory Day. Tycoon wata buugga ayaa yidhi tan malaa waa qalad ka timid daawacaada sababtoo qof waan oo keliya ayaa qalabkan oo kale samayn kala. xilligaas dagaalka adeegsaday waxa ku jiray digniin. waxa ku qoran boggan ciyaaryahanka awoodu ma lahaan doono inuu ka baxo ciyaarta. haddii lagu dilo gudaha ciyaartana waxaad sidoo kale ku dhiman doontaa nolosha riyaalka ah. Tycoon oo naxsaya aamusay oo iska tuuray buuggii isagoo leh iskaga carar meeshan wax kasta ahaadaani keliya waxaa rabaa inaad seexdo. wuxuuna isku tuuray dhulka si uu hurdo. laakiin saaxiib hurdadii Tycoon ma noqon mid hirgasha si caadi ah oo qolkii oo dhan ayaa deganaantii isbedeshay. waxayna isku bedeshay masraxa riwaayadaha. Jinhu sakhraansan oo sariirta jiifa ayaa bilaabay guuxa. guuxii khuuro iyo dhuuso isdaba joog ah. kadib Tycoon oo dhulka jiifa ayaa indhaha kala qaaday iyadoo xididii wejiga soo wada baxeen oo xanaaqsan ayuu ku qayliyey niyo nacaska waxaa rabaa inaan ku dilo. Tycoon isagoo waalan rabaa oo meel u baxsada laha ayay indhihiisa mar kala qabteen kaabsarkii weynaa. wuxuuna is yidhi kaabsarkaas ma laga yaabo inuu yahay mid dawaqa celiya oo sunproof ah
oo soundproof ah. Halkuu ka fikiraa digniinta dhimashada ee buug ku qornayd, caadska iyo guuxa Jinhu ayaa ku riixay inuu galo gudaha qalabka si uu uga baxsado sawaxanka. Wuxuu fariistay kursigii raaxada lahaa, wuxuuna gacanta ku qabsaday koofiyadii fiirka arkahayd uuna gashtay. Wuxuu gashtay koofiyadii, isla markiiba indhihiisa waxaa ka soo baxay iftiinkii ugu horeeyey. Tikuya wuxuu dareemay wax ka duwan dunida caadiga ah. كان نقول صلاة حلقتين كوانا من هبديدا فضلا لايك صار مقالك سبسكرايب نصور نوصار سين هدف كينو كارنو